السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو dhawaada walaalaha ku xiran Birole Islamic Media. Waa walaalkiin Cabdullaahi Maxmed Birole. Waxa aan jeclaysanaa fiidiyoona idinkula wadaago mowduuc ku saabsan isbeddelku. Isbeddelku waa awoodda gudaha oo u baahan rabitaan xoog leh iyo go'aan qaadasho. Loona raaco dariiqooyin la taaban karo iyo habab lagu gaaro yool cayiman oo nolosha lagu beddelo. Imise qof ayaan lacag haysan oo taajir noqday. Imise qof ayaa la iloobay oo noqday hogaamiye weyn. mise magaciisa wuxuu caan ku noqday goob gaar ah oo iskiis u tartama oo caddeeyay inuu karti u leeyahay wax walbo. Dhammaantood waxay heleen awoodda isbeddelka waxayna ku dhaqaaqeen yoolalkoodii ilaa ay ka gaareen guushooda. Qof kasta waa inuu hubiyaa inuu awood u leeyahay inuu beddelo noloshiisa, uu gaaro guushiisa oo uu kalsooni ku qabo naftiisa. Ka faa'iidaysiga dadka khibradda leh. Marka aad eegto waayo aragnimada dadka kale ee ku guulaystay isbeddelka, waxay waxtar u leedahay garashada dariiqii ay raaceen. Ma jiraan wax qalad ah marka la eego aragtida dadka kale iyo ogaanshaha dhaqankooda xagga guusha. Hal tijaabo oo guulaysata. Haddii qofku isku dayo inuu beddelo caado ama dhaqan xumo, marka tani waxay ka dhigan tahay inuu leeyahay awood isbeddel ah oo ku dhex jirta isaga, iyo inuu isaga isxakameyn karo naftiisa iyo doonistiisa, inuusan uga tegin nolosha kuwa kale inuu xakameeyo. Sidaa darteed ka xoreey shay maxbuus leh guul uu mudan yahay in la qadariyo oo aan la iloobin. Qoritaanka wax qofku doonayo inuu beddelo, isaga oo ku qoraya wax kasta oo ay tahay inuu ku beddelo xaanshe, isla markaana dejiyo qorshe ay tahay in la raaco taas, si qofku uu noqdo mid firfircoon oo feejignaan, oo uusan iloobin inuu waajib ku saaran yahay naftiisa waa in uu sameeyaa.